halkan oo ah guriga magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta la sheegay in diyaarad uu raaci lahaa dowladda federaalka oo ay ku xiriirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ku soo gabagaboobay shir u dhexeeyay Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed xubno markaas isugu jira xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaalida waxaa looga adeegsanayay arrinta dhacday ee ku saabsan xayiraadda lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isaga wafdi uu hogaaminayo la filayay inay tagaan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan caleemasaadka madaxweynaha Jubbaland waxaa ka horreeyay siyaasiyiinta xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta ka yimid xubno wasiirada oo ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo sheegay in halkan ay kulan kula qaateen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed isla markaana iyagoo wakiilka ah ee dowladda federaalka ay kala hadleen arrintan iyo qaabka xal looga gaari lahaa wararka aan helnay waxay sheegayaan in xildhibaanadii iyo mas'uuliyiintii wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo mas'uuliyiinta ka jooga ay u sheegeen in ay doonayaan in raaligelin arrintaas dowladdu ay ka jawaabto isla markaana sidaas hadda mas'uuliyiinta dowladdu ay ku maqan yihiin sidoo kale kulamo kala duwan ayaa socday oo ilaa iyo hadda qaarkood ay socdaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna qayb ka ah mas'uuliyiinta halkan uga qayb galaya kulamada iyo dadaalada looga hadlayo arrintii xayiraadda ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, Dalsan TV.